annagu dawlad ma hayno meedkeedii gacantaanu ku soo qaadanay marawaaska bacdi meel la mariyaa la waayay hal nin oo madax oo maanta albaab ama dhagax ka qaado waa la waayay cadceedda aad u jeedaan baan u lugaynay ciiday sugaysa ayada u taala qaar ka mid ah ehelada fanaanadii shalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee Saynab Xaaji Cali Baxsan ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya ku dhaliilay qaabkii loo aasay marxuumadda oo ay sheegeen in ay ka muuqatay dayac iyo ka maqnaashaha xubno ka socday dawladda Soomaaliya fanaanada ayaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Cali Suufi ee degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir xilli ay wadooyinka soo galo ay xirnaayeen taasi oo caradii ay ka qabeen si laba jibaartay waxaana ehelada qaarkood ay codsadeen in aas qaran loo sameeyo murugada darteedna 3 bari calanka hoos loo dhigo baxsan halgamaaba ahayd calanka Soomaaliya ku soo dhigtay bay ahayd intay martay waad ogtihiin naagta ugu horeyso oo Soomaaliyeed oo maxaan ku dhaafan ku jirto ama meel kale ku jirto ama dawlad ku jirto oo bilad geesi leh oo bilad sharaf leh ahayd baxsan maantayna waxa anagu aan ka xunnahay oo ka calool xumaysanahay oo ka tiiraanyeysanahay anagu waxaan ku dugnaa anaan u waayn oo qof hantila ay ahayd oo xoolaheedii hanteeda adduunka uga hareen waxaan ka calool xumaysanahay mudankay lahayd iyo maskabkay lahayd ee dawladda Soomaaliya ee marin dawladda Soomaaliya ma marin maskabkeedii baxsan mana aysan noo imaan mana aysan noo soo tacsiyeyn mana aanan arag marka taasoo kaleeto nin daar dheer fuulay baa la dhulka u dambeeyo nin walba maalin buu dhiman annagu waxaan uga baahanahay oo maanta leenahay siyaarada dhaqaalaha ahaata ama ha ahaata garab ma jirto ilaahay Soomaaliya buu badiyay baxsan Soomaaliya ka dhalat baxsan waxay dhigi jirtay aniga wiilasha Soomaaliyeed baan eedo ah intee wiil baan leeyahay ma taqaanin Soomaaliya dhan baan eedo ah wax kale ma isdhihi jirin ma kaste marka maanta anaga dawladda Soomaaliya waxaan ku dhaliilaynaa ama aanan agtayada waxba aanan uga haynin ama aanan u fiirinaynin baxsan kaskabkay mariyeen baxsan oo mukaltoom waa ka sarreeyay baxsan masar naagti masar oo 3 bari calanka dhulka loo dhigay dad waxba istaahilin bay diyaarada ku soo qaadaan oo ku keenan intaas oo dollar ku bixiyaan anagoo maanta aan waxba uga baahnayn xataa inayna dhahaan ilaahay ha u naxariisto baxsan waa awoodi waayeen saas dawladdu u ahaan maayo annaga dawladda Soomaaliya maskabkay baxsan lahayd waxaan ku samir karaa in calanka Soomaaliya ay 3 bari hoos u dhigaan Allah u naxariisto eedaday Saynab Xaaji Cali Siigaale aniga waa eedaday ilaa shalay 9 saac markay dhimatay ilaa xilligaas qof bilaadan oo intii familkayga aan ahayn ma aanan arkin eedaday waxay ahayd qof Soomaaliyeed bay ahayd may ahayn qof shakhsi kaliya ku soo kooban dawladina waxay noo qabatay maanu arag dad kale waxay noo qabteen maanu arag intayadii familka ahayd ayaa gacanta ku soo qaadanay waxbay nooga daran yihiin dawlad waxay noo qabatay iska daaye gacmahan ku soo qaadnay meedkii ilaa marwaas baan ku soo qaadnay gacmaha oo wiilashayadii ilaa iyo hadda ay lagu reebay banaanka xitaa annaga iyagii ubadkii ay dhashay ama eedadu ahayd ama ilmaadeerkay hayeen ayaa banaanka lagu reebay oo meedkii laga reebay annaga nama qabato eedadayna Allah u naxariisto nama qabato dawladda ayaan dacwo ka nahay ilaahay dhulka la gooyo dawladna ma naqaanay waxaan doonaynay annagu aanu cabasho ka nahay ummadda Soomaaliyeed baxsan way jeceshahay wayna ogeyd wayna ku dhimatay anna waan ogahay ilaahna wuu ogyahay laakiin maanta dawlad baa joogta dawladdii mustawihii ay lahayd munaasabadii ay lahayd Saynab Xaaji Cali sidii la sheegayba siday ahaydba calan bay ahayd calanka Soomaaliyeed bay Saynab ahayd meeday xaggay dawladda gashay aaway xasuustii aniga 2 biladood baan arkay 2 biladood aan arkeen Saynab Xaaji Cali ku arkay cid haysatay ma aysan jirin mid waxay ahayd Allah u naxariisto xilligii aadan cadde General Daawud ayaa gudoonsiiyay الله يرحم الراحمين مدنا وحي أهد دولة دحى مد بلاد شرف مدنا بلاد جيسن دولة دحى الصومالية بربرت ورلبا بلادود قفك هايستا إما أنت تشوي إم بحسن هين يو أها هدو أهاسه سو سيد بحسن ونمو دمان سيد ما أنت بحسن ودمان تي دولة دمان وقد دمان تي سو وقمي دمان هذا بقى أنا جو على الحما يجو أها دولة دي الصومالية أو شرطة أو عالم كنو تاجن يهاي أو عن وحيسنا أو عيدا هيسنا عيدا كالصومالية كم إيه وحن لا يهاي
kuwii ka dambeeyey saynabtii labada biladood haysatay calanka Soomaaliyeed ahayd marka anagu maxaan filanaynaa dawladeey waxaad isku dhaqi kartaa oo inta nagaga meeydi kartaa haddaanu nahay fanka suugaanta Soomaaliyeed haddaanu bah nooc doona bah noqdo bah kasta noqoto haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed haddaanu nahay awlaadeedii haddaanu nahay hooyo anaga hooyo saaxiibadeed haddaanu nahay waxaan nagaga meeydi kartaa 3 cisho sida gabadhaasi u sheegtay Cureeji Maxamed Cali in calanka hoos loo dhigo niyadayadu in bay soo noqon laakiin haddii kale waxay noqonaysaa maxay tahay kuleel maceeba aniga oo Maxamuud Maxamed Xasan kana tirsan ehelada Saynab Xaaji Cali Baxsan Siigaale waxweeye waxtana waxay kamid tahay nasiib darrada haysata ummadda Soomaaliyeed kamid tahay tan hadana qabsatay wax gooniya maaha waa wax ummadda Soomaaliyeed qabsaday hore u qabsaday cadaalad darrada jirtay kamid tahay cadaalad darrada jirtay kamid tahay waxa shidada jirtay kamid tahay in dadka ay kala socnaan waayaan ninkii qaran u soo adeegay iyo ninkii caadigan u kala socnaan waayo waa cadaalad darrada jirtay weeye ummadda Soomaaliyeed wax qabsatay kamid tahay u taahimayno u dhutin mayno nin walbana taariikhda qoraysa dawladnimo waxaan u leenahay wax yar isku xishooda dadka xilka haysto isku sheegay wax yar ha xishoodaan nin walba taariikhda qoraysa dadkuna ha u kala socnaadaan jidadka in la xiro oo meydka jidadka laga xiro oo qofkii qaran jidka laga xiro muwaadinka hore u dhibana in haddana qofkii ma taqaanaa jidka laga xiro wax loo dul qaadan kara maaha waxaan leenahay annaga idin habaarimen ilaahay hadanuusho Allah u naxariisto Saynab Xaaji Cali Baxsan Siigaale way hadleen waryarahay walaalahay dadkii waa la hadlay hadal dambe ma laabno anigu waxaan ugu darayaa kulay iyagu dawlad bay sheegaan dawlad ma arag anagu dawlad ma hayno meedkeedii gacantaanu ku soo qaadanay marawaaska bacdi meel la mariyaa la waayay hal nin oo madax oo maanta albaab ama dhagax ka qaado waa la waayay cadceed aad u jeedaan baan u lugaynay ciiday sugaysa ayada u taala fanaaniinta waa barina ayagoo dawladda ku wada hosgabanay ayaga laftooda way joogaan eedaha xubay kaga jiraan Saynab Xaaji Cali Baxsan qof aan ahayn ama qof maanta darajada ay ka gaadhay Soomaaliya ka gaari kara ma jirto maanta day wadan kale ku dhiman leed waxaan oran lahayn ma naloo qaado anigu saaka waxa ku taliyo Soomaaliland loo qaado Soomaaliland saakin loogu qaado ayaanu diyaar u ahayn ayagaana habsaamiyay xalay 7 saac baan war ka sugaynay ayaga iskala bedelayo igu sawiriya madax iyo balaayo kalaha anagu madax nooma aha dawladna ma arag dad shacab weeyaan waxaan marka ka codsanaynaa nimanka dawladda isku sheegaya in ma aragte ay islaantaasi miskiinta ah oo u soo halgantay wadankaas inay calankaas 3 cisho intaas anaga codsiya 3 cisho hoos loogu dhigo 3 cisho aanu ka sugaynaa haduu halgamaa jiro waa halgamaa rag iyo dumarba mana doonayna inaan ku sii fogfogaano anagu wax ay noo hayaan hal nin oo ciidan maan arag maanta 12 4 saac guriga laga soo qaaday saacadaas la aasay intaas waxa la sugaya maxaan ku raad wada loo maro meedkeeda wax ka leexdaa la waayay wiilayna yar baa joogan taariikhdeeda aqoonin marka taariikhdu waa laga soo sheekeeyay Allah u naxariisto Saynab Xaaji Allah u naxariisto insha Allah mawlana kulli inta ka dambeysana dad un baa dhihi doona hal soo qaado marka inta xamar hal iigeeyo war xamar hal laga cararo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaasheen hooyadeen marna walaasheen marna hooyaday marna eedaday naxariistii janno Allah ka waraabiyo taariikhda baxsan wax lagu soo koobi karo istaagan kaliya ma ah waa qof halgan dheer u soo martay halganka nolosha Soomaaliyeed taariikhda gobonimo doonka dhiirigelinta samafal ay nooc ka soo qayb qaadatay waxa kale ku darsatay burburkii Soomaaliya waa qofta ku dhiiratay hal habeen aan uga baxan wadanka oo meel kale aan ka aado taasina waxa ku muujinaysaa dhiiranaanta ay ku dhiiratay inay Soomaali tahay in dalkeeda u soo halgantay siyaasadda ayadoo jirta waxaan ka xumahay dawladda maanta jirta in ay ka gaabisay kaalintii aan ka sugaynay abwaana xirsidhuux oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun la yastaqdimuna saa'atan wa la yasta'khiruun madinta wa ilaahay kullu nafsin dha'iqatul maut waxaan tacsi iyo tiiraanyada la wadaagayaa qoyska Saynab Xaaji Cali Baxsan oo muxuu ahaa maanta run ahaantii geeri naxdin leh oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay la wadaagaan oo ay ku timid waxaan leeyahay
samir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto Saynab Xaaji Cali Baxsan khaas ahaan dadkii ay shaqo wadaagga la ahaa jirtay waxaan si khaasa ugu tacsiyinayaa qoyskeeda oo run ahaantii muxuu ahaa dhibaato badan ka maray xanuunkeedii oo in muddo ah ku jirneed oo in muddo ah ay dhulyaal ahayd oo maalmihii dambe oo dhan kooma ku jirtay maantana aaskeedii muxuu ahaa qaxar badan iyo dhib badan oo ka qabsaday iyagoo ilaa masaajidka Marwaas oo janaasada lagula tukaday garabka ku soo qaaday maadaama jidadka ay xirnaayeen waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteen Allah naga siiyo hobolada waa bari oo ay ka tirsaneed si khaasa ayaan ugu tacsiyeynayaa iyo bahda warfaafinta maadaama fanaanku uu suxufi yahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto samir iyo iimaan Allah ka siiyo khaasatan ehelkeeda iyo gabadha ay soo korsatay iyo kuwa ay dhashay iyo eedada kuway u tahay gabdhaha habareeraha u tahay dadka ay waalidka u tahay oo dhan samir iyo iimaan Allah ka siiyo waa idan la qabnaa murugada run ahaantii waxa aasaan dhihi karaa qoyska kaliya oo maaragtay ma aanan arag cid kale oo muxuu ahaa abaabulan oo kala soo qayb gashay hadday tahay dawladda iyo hadday tahay fanaaniinta iyo hadday tahay golaha abwaanada naftiisa yacni isku halayn inay dhacdayaan arki karaa muxuu ahaa annagoo kale xalay waa damacnay inaan muxuu ahaa guddi samayno hase yeeshee maaragtay waxaan is dhahnay waa laydinka gacan toosan yahay marka waa ka xumahay muxuu ahaa baxsan sida wax u dhaceen laakiin qof kasta waa calafkiisa insha Allah taala haddaan wax yar kor istaago taariikhdeeda inta aniga aan jiro baxsan waxay ku jirtay fanka waa halgame taariikh weyn ku leh ee ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda waa qofka kaliya ee fanaan ku abtirsada ama abwaana ama fanaana ee bilad geesi ku qaatay halganka ummadda Soomaaliyeed يعني waxaan ku qiimeyn karaa ma jiraan run ahaantii يعني fanaanada kaliya ee haysatay Soomaaliya oo dhan bilad geesi weeye oo dagaalkii 64 ku qaadatay wadaniyada muxuu ahaa halgankii sida uu garab istaagtay ciidamada qalabka sida maanta waxaan rajaynayay in militariga Soomaaliya oo isku duubano ay halkan joogi doonaan waa duruufo jira awgood waa dhacday maxay u dhacdana ma dhahayno waxaan leeyahay marka ugu dambeyntii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dawladda Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay in aysan ka warqabin fanaanadan ka tirsanayd gobolada Waabari oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuuna uu ku hayay magaalada Muqdisho madaxda ugu sareysa dalka ayaan xil buuxa iska saarin aaska loo sameynayay marxuumada oo shalay ku geeriyootay caasimada Allah u naxariistay Saynab Xaaji Cali Baxsan oo ahayd tiirarkii ugu waaweynaa ee fanka Soomaaliyeed ayaa hadda waxa ay aaday gurigeedii rasmiga ahaa iyadoona noqon Audio Jungle.